waad mahadsantahay Mustafa Maxamed War Cadeeye adig iyo dhageystayaasha idaacadda Radio Muqdisho iyo guud ahaan daawadayaasha telefishinka qaranka Soomaaliya tan iyo shalay markii baarlamaanka Soomaaliya ay ansixiyeen golaha wasiirada cusub ee Ra'iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa waxaa jiray aragti kala duwan oo qaybaha bulshada ay ka dhibanayeen isla markaana waxaa sidoo kale ka hadlayay waxgaradkii aqoonyahanada kala duwan ee ku nool dunida dacaladeeda haddaba waxaan rabaa qaar ka mid ah jaaliyada Soomaalida ee ku nool magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika inaan bal microphone kala dhaxmaro si aan u eego aragtidooda ku aadan dareenka ay ka qabaan golaha wasiirada cusub iyo sidii u arkaan ansixinta baarlamaanka Soomaaliya waxaad ka mid tahay ganacsatada Soomaalida ah ee ku nool dalka Koonfur Afrika adigoo magacaaga ku bilaabaya marka hore waxaad ka hadashaa bal aragtidaada ku aadan ansixinta baarlamaanka ee ansixiyeen golaha wasiirada cusub bismillaah magacayga waa Cabdi Cabdulla Gargaar ku nool South Africa gaar ahaan Cape Town xaqiiqiyan waan soo dhaweynaynaa wax kasta oo la dhiso waan soo dhaweynaynaa qaas ahaan dawladda hadda la magacaabay laakiin waxaan jeclaa lahayn in aan mar labaad aan ogaano wax qabadkooda oo aan macnaha markaas ay nagu habboonaa lahayd inaan si fiican u soo dhaweyno marka wax qabadkooda ayay ku xiran tahay waa soo dhaweynaynaa ma ka hor imaanayna laakiin waxaa muhiim ah wax qabadka ay xukuumadda cusub yeelato taas ayaa anaga aan macnaha ayaan mustaqbalka soo socdo ayaan ogaan doonaa wixii ay sameeyaan waxaad ka hadashaa dareenkaaga ku aadan ansixinta baarlamaanka ee ansixiyeen golaha wasiirada cusub maanta magacaygu waa Axmed Maxamuud arinta horta in baarlamaanka iyo dawladda ansixiyeen aad baan ugu faraxsanahay maadaama in la soo hortaagnaado mid ku taag ay dawladdii iyo nidaamkii waddanka oo noqdo anagu aad aan uga xunahay waana ku faraxsanahay in la ansixiyo aad baan u soo dhaweynaynaa ma jirta wax tala ah oo aad siin lahayd golaha wasiirada oo maaragta u badan dhalinyaro la rabo in dalka ay gaarsiiyaan marxaladda doorashooyinka 2016 talo horta inay dadaalaan baan kula tali lahay wax kale hadda talaahoon anigu halkaan uga hayaa ma jiraan kolley dadaal ninkii dadaala waa gaaraa dadka Soomaaliyeed waa dhibaataysiin meel ay joogaanba marka inay horumar muujiyaan oo dad wadaniyiin oo dadaal ay noqdaan baan kula tali lahaa wax kale talaaho inta dheer maaha okay waa tahay marka hore adigoo magacaaga ku bilaabaya waxaad ka hadashaa aragtidaada ku aadan dareenka baarlamaanka ansixiyeen golaha wasiirada cusub magacayga waxaa la Cabdiwahaab Maxamed Xaaji Farax haddii aan ku bilaabo ra'yigayga ku aadan ansixinta golaha wasiirada waxaan dhihi lahaa horta waa arrin aad u fiican ayay sameeyeen maadaama dalka uu u xirnaa baarlamaanka muddo dhowr biloodna uu ahaa xukuumad la'aan sidaa darteed waa wax aad u fiican waana wax loo baahan yahay adigu waxaad ka mid tahay ardayda Soomaalida ee dalka Koonfur Afrika wax ka barta xog badan baad ka haysaa Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ma isleedahay Soomaalida Koonfur Afrika dabcan way u baahan yihiin golaha wasiirada la meel mariyo oo wasiirka arrimaha dibadda kale uu maaragta shaqadiisa qabsado oo arrimo maaragta South Africa kale wax laga qabto horta run ahaantii South Africa ahaan dadka ku nool waxa u baahannahay horta in xukuumadda la ansixiyo sababtoo ah waxaan bafilanayna in la soo diro safiir oo safiirkii hore howlihiisa oo meesha ugu sii ambaqaado bilahan ugu dambeeyna macnaha dalkan waxaa ka jira dhibaatooyin aad u badan oo lagu hayo dadka qaxootiga ah oo u badan dhalinyarada Soomaaliyeed ee xamaalatada ah ee meelaha dhaadheer ka shaqeysta sidaa darteed waxaan rajaynaynaa insha Allah hadduu Alle idmo in weegaga soo xiga in wasaaradda arrimaha dibadda ay soo gaarto bal arintana haysata iyo dhibaatada in lagu lahayo si kalena aan kaga bixin karno oo aanan ahayn in heer nidaam dawli ah u isticmaalno maana si kale kaga bixin inay wax badan ka bedeli doonaan waana aad baan ugu faraxsanahay in la ansixiyo waa tahay waxaad ku bilowdaa magacaaga kadib dareenka maaragta aad ka qabtaan golaha wasiirada cusub oo baarlamaanka maanta meel mariyay wallaahi bismillaahi raxmaani raxiim wallaahi magacayga waxaa la yidhahdaa Maxamed Sharaawi Axmed waa ku faraxsanahay xukuumadda cusub laakiin waxaan rabaa inay xukuumadii hore ka bedelnaato waxqabadkooda iyo dadaalkooda iyo maxaan ku radaa sharaftooda ilaashadaan waddankana ay u dadaalaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ku dhammaanaya bad iyo birina ay u naxaan ay u dadaalaan si haybadii sharaftii Soomaalida ay dib ugu soo noqoto waxaan rabaa marka inaan u hambaliyeeyo xukuumadda cusub baarlamaankana waxaan ka codsanayaa inay iska daayaan jiidka iyo hebel jeclaysiga iyo maxaan ku radaa aniga haldaan layga dhigan ama sidaan baarlamaanku waa sharci dejiye ha ku ekaadaan ha iska daayaan mooshimanka iyo waxyaabaha ay ka daba ordayaan iyo nin jeclaysiga taas baan kula talinayaa aniga waxaad tahay abwaan nin wax qoran waa tahay dabcan wax badan u soo joogay xaaladaha siyaasadda dalka Soomaaliya wax tala ah oo aad gudbin lahayd ma jirtaa والله waxaan anigu tala ahaan gudbin lahaa
wax waliba waxay ka tolmaan cadaaladda ayaa wax walba aas-aaskeeda ah waxyaaba badan lagu ilaawi karaa la isugu soo dhoweyn karaa soomaalinimada iyo walaaltinimada iyo wada jirkuna ku imaan karaa cadaaladda ayaan laga tegin wax kastoo la samaynayo tixgelinteeda iyo xushmaddeeda ha la siiyo wax kastana dadkuna inay wada qancaan ha la isku dayo inkastaanay ay adag tahay laakiin taas beesku inuu ahadaa wanaagsan